دقنا شيء نبات حسبي مشدا madaxweynaha baan dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waanqay ku soo dhaadhici hadda korona ma aynan aqligeena kumaysan jirin ya hadda fiiqtibaad ismaana alhay yaano wuxuu iman hayaa waanqay iyo iman ya galdoxtoona hadda korona ma soo dhigeen jamahad weeyaan hadii maanta timido madaxweynaha miga maanta halka noogu yimid ya in dib hadda laga soo noolaan hayo ee gamaar dib isbanaysi wanaagsan iyo mahad weeyaan ma leena waxaan soconaa wad maleen nolosha dadweynaha iyo dalka inaad u socotaan baan u maleynayaa xaaladda marag madoonnimada ay gobolku ku sugan yahay hogaaminta sare ee dawladdu way dhaayasaareen shirki kaabineyga ayaa ajandayaashiisu waxaa ka mid ahaa sida xal loogu heli karo dhibaatooyinka haysta degmooyinka laga hidda salaxaad iyo qubi iyo waliba gobolka intiisa kale kaabineyga deegaanku aad buu uga garaabay dhibtaas aan weligeed ba la isweydiinay gobolka nogob haysata gaar ahaan xagga isku socodka hogaaminta sare ee deegaanka gaar ahaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa soo jeediyay in dhibta looga gudbi karo in la qaado buundada qarniga taalay faafan ee Talyaanigu dhisay maadaama hadda laga maarmay kadib markii laamiga jigjiga iyo harar isku xidha design-kiisa uu ka weeciyay halka buundadaasi ay saaran tahay wadada cusub fikradda ku saabsan in buundada faafan la geeyo waangay markay doodeedu bilaabantay waa lagu kala aragti doonaaday hogaaminta qaar ayaa waxay soo jeedeen in aan loo hayn awood buundadaas lagu geeyo waangay marka la eego masaafada u dhaxaysa faafan iyo waangay wadooyinka la sii marayo iyo baaxadda ay buundadu leedahay iyadoo isku aragti laga noqonayaa kalfadhigii la gabagabeeyay ajandihii buundaduna uu wali taagan yahay hayeeshee kalfadhigii xigay ayaa dood dheer kadib lagu qanciyay qaabka ugu fudud ee loo qaadi karo habka loo geyn karo waangay iyadoo wax dhib aysan soo gaadhin buundada go'aankaas kaabineygu ka gaadhay qaadida buundada iyadoo laga duulay ayaa waxa loo bandhigay shirkado dhowr ah inay qaataan qandaraaska hayeeshee way awoodi waayeen sidaa darteed ayaa kaabineyga deegaanku go'aamiyay in hawsha dhabarka loo saaro shirkadda adeega iyo dhismaha gaarka ee booliska dawladda deegaanka Soomaalida go'aankaas kadib shirkaddu iyadoo qaadanaysa waajibka la saaray ayaa waxay ka baaran degtay qaabkii loo qaadi lahaa waxaana bilaabantay furfuridii buundada
tobanka bisha Meeyaasiya 2007 oo ahayd maalintii xariga laga jaray isla buundadan kale waxa weeyaan birta ah oo markaas iyada ah lafteedu aan waxba ka dhicintan maanta aan furay maadaama ay ahayd markii ugu horeysay gobolka Erar ama Nogod ay isku xidhmaan ujeedadu kaliya inaan ku istaagna ma ahayn laakiin taas waxay noo saamaxday in muddada maanta aan sameynayno xariga laga jaray tan iga dambaysa in waxa weey la sameeyo ayay maxaan kula noo saamaxay anuu 18 jir baan ku imid webiga 14 daoodna waan ku dhalay hadda eega lugta waan ka taagnaan laho ay haastaa eega bidixda dhowr ninna eega way joogtaa oo aad dhaawacuu waxaanu degnaa ree geeldooxeed iyo gasaangas labadaba waanu nahay wadiisu wax la koobi kara annagu koobi kara ma aha annagu baa wax ka garanayna waxaad moodaa boondadii iyo meejaba annagu in loo sameeyey dad shalay daawan baan arkaya webiga annaga webi daawasho waxba nooma darmay boondadan annagu baa naloo sameeyaan leeh alxamdulilaahi rabbil caalamiin ninkii aan sibiq ku aragnana nagama baxayo dadka ummadda sida kale alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ula simannahay laakiin webigu candhaduna dhigay dadku candhada dhigaannahay dadku dhaawiciisu badan yahaannahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waad naga baahi tirtayo waanu kugu mahadin haynaa hadduu wada dhintay dadku oo soo wada noolaysay nolosha waan wada la qabnaa intaasaase gaar nagu sii ahaydoo webigu gaar noogu hayo yaa nagu sii ahayd wandadaan abiduumayn intuu waangay duldhigay wareeg lagu daali jiray karraysay dadweynihii durbaa laga hidaa ku tegi rafaadkii naga dawee dibsoor weeyaan xisbigu wandadaan abiduumayn intuu waangay duldhigay wareeg lagu daali jiray karraysay dadweynihii durbaa laga hidaa ku tegi rafaadkii naga dawee dibsoor weeyaan xisbigu waxaan ku socdaa fiiq baan hadda safar wahay baabuurkan inaan ka soo rartaan rabaa waxaan leeyahay waa cimri koow oo ilmo dhashay oo kalaan la mid ahay adduun cusub baan galay waan ku faraxsanahay baahida intii laga helaan soo bandhigayaaye injineer ambiinhayni bay noo ballamiyeene biro adag baldoos lagu burburi dhagixi buuraaye biriishkiina waa loo baldhabay labadii buuroode gaadhiguna bowlee dhulkii baalidka ahaaye waddadiina way noo baxdoo lagu barwaaqowye ee madaxweynuhu libin ku baaq beeshu waa nabad bigananiyo markuu saaray waangay birig saxaala loo maro xisbigeennan samawaadee
dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9% korna waan soconnaa maanta waa maalin sabti ah 20 bisha Maskaram 2010 waxa aan nasiib u helay xarig ka jarno buundada iyo wadada Mayo Muluqyo gaar ahaan fiiq Mayo in gobolkii Erar oo u dhan hortooda xarig laga jaro ayaa waxaan dhigi karaa waa wax Ilaahay lagu mahadiyo anagoo nasiib aan u helay idinkuna aad manfaceeda aad leedihiin marka waxaan leeyahay hambaliyo waxa weeye ii wadadan aqliga annaga kuma jiro haddaan Mayo Muluqanahay waxa weeye wada ka bixi doonto togan la yiraahdo gobayla ayay wada ka bixi doontaa aqliga annaga wuu ka weynaa laakiin maanta waxaan aragnaa wada lagu caanamaalay iyo buunda raasimaalkeega yacna iyo dhiseenkeegaba aad iyo aad il aragtayda ay ku diirsanaysa inay ka jirto ayaan aragnaa insha Allah ta'ala waxa weeye aad iyo aad mar labaad waxaan u madaxweynaynaa dawladda macaan iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo xisbigiisa iyo xukuumaddiisa iyo kabinetkiisa ay u madaxweynaynaa togan erareed wuxuu ahaan jiray meelaha ay waxa weeye hormadiidka ay ku gabadaan ayuu ahaan jiray waxa weeye halkan waxaan salaad ugu gudbinayaa waxa weeye ciidanka aniga qaaliga oo new booliska waxa weeye saraakiishiisa dablaydiisa saraakiil xigeenkiisa dablaydiisa ayaan salaad u gudbinaynaa kuwaas oo sugay nabadgelyada maanta aan ku caanamaalnay oo u hawoonay inaan togan beero waaweyn aan ka qodno noo sahlay maseexdo madalaye wuxuu daafuray misana bundada Mayo Muluqa iyo mashruuca fiiq iyo mugweyn maseexdo madalaye wuxuu daafuray misana bundada Mayo Muluqa iyo mashruuca fiiq iyo mugweyn gaadiidku jidadkay weligoodka gooshaan iyo guudka webiyada inta bunda gebiyada sida gogasha loo dhigay galadeeba weeyaan بري ساعة ما قارن كرو تاكا وحاك سوغانا سوالبا وما بانو وابري ساعة ما قارن كرو noloshay nooleedahay geeldoox waa sida geeldoox waa isku mid waa sida noloshay geeldoox nooleedahay dee bini aadamka noloshiisa yaa wax la dhaqo u weyn waxaan uga mahad celinaynaa cidii maxaan ku raahdaa fikirkan maxaan ku raahdaa la timiday maxaan ku raahdaa deegaanka maxaan ku raahdaa ama xubnaha xisbiga ee tayeysan ee arintan maxaan ku raahdaa ka mid dhaliyay ee uu mas'uul ka yahay madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamed Cumar hadda ka hor noo ballan qaaday kagana dhaweeyay ayaan marka koobaad uga mahadnaqaynaa mudidani yalasan jikeeda anagoo ka weecan xisbiga
حسبيغان وانقلي حقينه وحوت لو عن نسبي مركو ويارك دعيسا حولي ودنكينه وحولي ودنكينه Somalida Ethiopia dadasho adumi waliga adumi biyaha gantamayo gaadiid ku jidadkay weligoodka gooshaan iyo guudka webiyada inta bundagabiyada sida gogasho loo dhigay galadeeba weeyaan togani wuxuu kala xiri jiray dhammaan ummadda waxa weeyaan xilliga roobdaa ayuu dadka kala xiri jiray reerka qaybtiisu markay toga talowda qaybta dambe iyadoona tallaabin buu togu intuu soo mara meesha ayuu kala xiri jiray waxa suurtagal noqonaysa ilaa 3 bilood inuu reerkaasi kala xirnaado maalkii iyo dadkii lahaa labada dagood kala joogo nin reerkiisa intuu ka soo dhaadhacay magaalada tagow soo toogaystay baa haddana habeen ka dhaxay reerkiisa xoolihiisa sidaa uu bahalku ku leeyin jiray maantana waa ka gaadiidkii waxa weeyaan nooc walba ama ha noqdo waxa weeyaan gaadiidkii noolaa sida awrta iyo dameeraha ay boondadii dul marayaan ama gaadiidkii waxa weeyaan gawaarida ah ay dul marayaan dadkii bay u adeegaysaa ilaa 3 gobol bay boondadan isku xidhaa ummad fara badan oo ballaadhan bay markaa u adeegaysaa